waxaa maanta heshiis isafgarada ku wada galay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud mas'uuliyiin ka wada tirsan maamulada Galmudug Soomaaliya iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku jiray maalmihii la soo dhaafay xalinta dagaal beeleed 6 bishan ku dhexmaray deegaanka ka tirsan xadka labada maamul xuduudda u dhaxaysa maamul goboleedka Galmudug Soomaaliya iyo dowlad deegaanka Soomaalida waxaa muddo ku dhow 4 sano ka socday colaad salka ku haysa aanooyin qabiil oo u dhaxaysay beelo walaalaha oo wada dega dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowlad goboleedka Galmudug kaas oo ay dad badan ay naftooda ku waayeen soo noqoshada colaadan u dambeysay waxa ay khalkhal galiyeen ammaanka iyo socodka labada shacab ee walaalaha sida lagu yiri qoraal ay maanta si wada jir ugu soo saareen mas'uuliyiintan iyadoo xiriirka iyo isdhexgalka labada dal waa Soomaaliya iyo Itoobiya oo maalmihii ugu dambeeyay soo hagaagay waxa nasiib darro lagu tilmaamay daadashada dhiigga beeraha walaalaha oo wada dega deegaanada labada dhinac haddaba si loo dhameeyo xiisadahan ayay muhiim noqotay in ay shir isugu yimaadaan mas'uuliyiintan oo ay weheliyeen saraakiil ciidan oo ka kala socotay labada dowladood waa Soomaaliya iyo Itoobiya wadahadalada labadan dowladood oo socday intii u dhaxaysay 9kii bishan ilaa iyo 18kii ayaa maanta waxa lagu soo gabagabeeyay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaana lagu heshiiyay qodobadan in hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiya beeleedka labada dhinac wixii hub sharci darro ah ee lagu arko xuduudda waxa la wareegaya ciidamada federaalka labada dowladood dowlad kastana waxa ay u xil saaran tahay la wareegida hubka sharci darrada ah ee soo galay xuduudeeda in guud ahaan xuduudaha labada dal ay noqdaan kuwa caagan hubka iyo abaabul ciidan beeleedyo arinta xuduudaha labada dal waxa si toos ah uga wada hadlaya gudiyada xuduudaha ee heer federaal ee labada dowladood Soomaaliya iyo Itoobiya iyo hadba cidda ay u wakiishaan in qofkii ama kooxdii ka geysata faldabiyeed xuduudda labada dal ay soo qabashadooda iska wada kaashadaan labada dowladood heer federaal iyo heer maamul goboleed si loo marsiiyo sharciga in aan laga sameyn karin deegaameen cusub dhulka ku tirsan xuduudda labada dal ilaa la helo ogolaansho dowladeed isla markaana xoolo dhaqatada beeraha deegaanka wada dega ay xor u yihiin daaqitaanka meesha ay doonaan oo baad iyo biyaba ay ka jiraan labada dhinac kadib markii la xasiliyo nabadgelyada in wixii tabasho ah ee ka dhex jira beeraha walaalaha gudaha dalka Soomaaliya ay u xil saaran tahay dowlad goboleedka Galmudug ee Soomaaliya iyadoo kaashanaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale wixii khilaafaad ah ee beeraha walaalaha ee dhinaca gudaha dowlad deegaanka Soomaalida ay u xil saaran tahay dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo la kaashanaysa dowladda federaalka ee Itoobiya isla markaana ay iska wada kaashan doonaan si wada jir labada dowladood wixii ay isaga baahdaan maamul kasta heer maamul goboleed iyo heer federaal waa inuu qaato mas'uuliyadda iyo xakameynta shacabkiisa waa in ay mas'uuliyiintu ay ka wada madax banaanaadaan qabiilka iyo qabyaaladda waa in ay ku bixiyaan maskax iyo maalba sidii uu u noqon lahaa deegaankan mid nabadgelyo tusaalena uu ugu noqon lahaa deegaanada kale in labada maamul dowlad goboleedka Galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaalida ay si joogto ah isu weedaarsadaan xogaha amni iyo nabadgelyada labada xuduudood 24 saacba hal mar haddii aan xaalad degdeg ah aysan jirin waxa xogahani isweedaarsan doona maamulada heerarkoodu kala duwan yahay iyo cidii loo igmado iyadoo ay mas'uul ka wada yihiin ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya iyo kuwa deegaanka waa in la xakameeyo ama laga hortago waxyaabaha keeni kara kicinta iyo abaabulka khilaafaadka beelaha iyo maamulada ee la isku mariyo warbaahinta kala duwan sharcigana lala tiigsado in heshiiskani ka dhaqan galo dhammaan xuduudaha labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya gaar ahaan labada dowladood ee heshiiskani dhexmaray dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowlad goboleedka Galmudug sidoo kale labada dhinac waxa mas'uuliyad si wada jir ah uga saaran tahay fulinta qodobada heshiiskan cidii fulin weydana in lala xisaabtamo si loo xaqiijiyo ammaanka guud ee labada dowlad goboleed waxa ay yeelan doonaan kulan ay isugu imaanayaan 3 biloodba mar qodobada heshiiskan oo maanta si wada jir loogu kala saxiixday degmada Cadaado ayaa labada maamul waxa kala metelay maamul goboleedka Galmudug waxa uga wakiilaha oo u saxiixay heshiiskan wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug Duraan Maxamed Samatar wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Galmudug Daahir Shidane Cabdi wasiiru dowlaha arrimaha gudaha Umar Maxamed Diiriye la taliyaha dhanka amniga ee madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Jaamac Cabdulle taliyaha nabad sugidda qaybta Galmudug Korneel Mahdi Umar Muumin dhinaca kale dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa heshiiskan u saxiixay maanta hoggaan ku xigeenka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Maxamed Cabdi gudoomiyaha gobolka Doolo Cabdinaasir Maxamed Cabdulle la taliyaha nabadgelyada ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Badal Xiis Maxamed madaxa maamulka iyo lacagta Korneel Deeq Umar Cabdi taliyaha gaaska saddexaad ee ciidamada federaalka ee dowladda Itoobiya Korneel Xaashi Ibrahim Cabdi Cabdikariin Axmed Bulxan raadiyaha iyo TV-ga qaranka Caabud Waaq